shirkadaha duulimaadyada ee Freedom Air Express iyo Blue Ocean ayaa beeniyay warar maalmahan la isla dhexmarayay oo ku aadanaa inay joojiyeen duulimaadyadoodii ku aadanaa garoonka Cabdullaahi Yuusuf Airport ee magaalada Gaalkacyo iyo waliba Puntland oo idil. Fuad Abshir Xasan oo ah wakiilka shirkadahan oo shir jaraa'id ku qabtay garoonka diyaaradaha Cabdullaahi Yuusuf Airport ee magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay inaysan wararkaasi waxba ka jirin. Fuad Abshir Xasan wakiilka diyaaradda Freedom Air Express and Blue Ocean waxaan shirkan jaraa'id u qabanay maanta oo halkan saxaafadda isugu yeernay inay goobjoog ka noqdaan in airportka Gaalkacyo ay ka soo degtay diyaaradda Freedom Air Express and Blue Ocean iskajoolkeeda caadigan ay ku timid maanta Talaada ayna ka shaqaynaysay airportka haddana ay shaqayn doonto. waxaan kaloo cadeynaynaa in airportka ay hadalladii dacayada ay suuqa la geliyeen waxba ka jirin. waxaan kaloo rabnaa inaan u sheeg dawladda ka codsano cid alle cidii propaganda suuqa gelisay mise dacayada fidisay ah Freedom Puntland ma timaado inay talaabada ku habboon ka qaado. Puntland waa flightki saddexaad baan u maleynayaa weekend gudihiisa aan ku nimaadno. Garowe waa ka degnay, Qardho waa tagnay, maanta xitaa diyaaradan Qardho tagi doontaa. waxaan u sheegaynaa marka dadka shacabka ee reer Puntland iyo dawladaba inaan annaga diyaar u nahay inaan u shaqeyno shacabkayaga. Freedomna ay tahay diyaarad u adeegta dadka Soomaaliyeed guud ahaan Soomaaliya oo dhan meel kasta ay joogaan. waxaan cadeynaynaa mar labaad ugu celinaynaa inay dadku heli doonaan adeegooda sidii uu u baahnaayeen shaqadan ay socon doonto. iskajoolka diyaaradda ay ku duuli jireen ruudka sidiisa u shaqayn doono waa soo dhaweynaynaa waana mahadsantihiin. xilligii Fuad Abshir Xasan warbaahinta la hadlayay ee shirkadaha duulimaadyada ee Freedom Air Express iyo Blue Ocean waxay garoonka Cabdullaahi Yuusuf ay ka wadeen duulimaadyadoodii ku aadanaa magaalada Gaalkacyo. Sida Cali Nuur Cabdi Saalitaatiko Star TV Gaalkacyo.